shirkan oo ka dhex xarunta wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland ee Garowe ayaa waxaa shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda waxaana looga hadlayay dardargelinta qarashaadka ku waajibay bahda waxbarashada waxaana goobjooga mas'uuliyiin ka kala socotay wasaaradaha maaliyadda waxbarashada iyo guddi farsamo yaqaan oo hawshan ku lug lahaa محمد عبد القادر عثمان oo wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa faahfaahiyay qodobada shirka looga hadlay ee la xiriira soo xareynta dakhliga shirkii maanta waxa ka soo baxay in dhammaan macallimiinta dalka ay ku waajibayaan dakhliga soo gala ama mushaharaadkooda ku waajibayaan cashuur macallimiinta dawliga ah oo tiradoodu dhan tahay 2117 macallin waxaanu ka jarnaa cashuurtii ku waajibtay mushaharkooda intii u soo hadhay haba yaraatee wanaguna inuusan ku filnayn ayaa gaara macallimiinta inta kale oo aan dawliga ahayn ama iskuulaad dawliga ka shaqeeyaan ama iskuulaad kuwa bulshada ama kuwa gaarka loo leeyahay waxa laga rabaa in cashuurtii dakhliga soo gala maalinka ku waajibaysa intay dhan tahay iyo farsamadeeda waxa dib ka soo sheegi doona dadka farsamo yaqaanka ah dooleedmo waxana la sameeynaya go'aankaas uu xirgelaya dhawaan xilli dhow oo inta farsamada laga dhameystiraya laakiin waxaan iclaamka iyo bulshada reer Puntland iyo dhammaan bahda waxbarashada la wadaagaya in cashuurtaas ay waajib tahay lagana qaadayo hadwaleed wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Xasan Roble ayaa sheegay in soo dhaweynayaan kulanka wasaaradda maaliyadda ay kala wada hadleen qarashaadka iyo horumarka Puntland waxaa runtii sharaf weyn loo ah wasaaradda waxbarashada haddii aanu nahay ee Puntland in aan wasaaradda maaliyadda kala soo qayb galno shir ummadda danaheeda looga fakarayo lagu eegayo dalkani siduu dhaqaalihiisa iyo danihiisa isugu dubadhici lahaayeen waxaa kaloo sharaf weyn loo ah in ay wasaaradda waxbarashadu noqon doonto dadka ugu horeeya ee sidii hore ay horumarka dalkaba gacan uga geysan jireen oo ay weligoodba ugu ammaanaayeen inaanu haddana ay noqon doonaan qaybta ugu badan ee ka qayb qaadan doonta cashuuraha dalka si ay dalkan danihiisa iyo hawlihiisa la isugu dubarido ama khadamaadka ijtimaaciga ah ee dalka la rabo in loo qabto ay dawladdu u qaban karto waxaan markaa filaynaa haddii aanu wasaarad nahay annagu waxaanu diyaar u nahay in aanu hawsha qaybteeda ka qaadanno ayna noo tahay weliba sharaf iyo wanaag inaanu hawsha dalka keliya cid walba oo laga raboba annaguna aanu hormuud u noqonno dalka oo dhanna waanu ognahay inuu nala mid yahay annaga wax nagu gaara maaha laakiin waxaan hubaa inaanu annagu noqonayno qaybta ugu muhiimsan ee howlahan fulinaysa ha noo ahaato macallimiinta ha noo ahaato muxuu ahaa maamulka ha noo ahaato howlaha aanu qabanno ardayda u qabanno wax kastaba ha ahaadaan wixii aanu qabanno oo dhan waxaanu kaga qayb qaadan doontaa dalka dhismihiisa sidii horeba mar horeba aanu u hogaamin jirnay dalkan horumarkiisa haddii ilaahay ka dhigo waxaan macallimiinta iyo u sheegaya dadka maamulayaasha iyo cid walba oo wasaaradana ka tirsan in ay tahay arrintani arrin sharafa oo loogu talagalay in dalka wax looga qabto waxaad ogtihiin dal aan cashuur lahayn inuusan is-hogaamin karaynin in aan danihiisa la qaban karaynin in aan adeegii loo baahnaa loo qabanaynin sidaa darteed waxaan filaynaa in cashuurta yar ee ama badnayn macnaha runtii aan wax badanba qofka ku sii kordhinaynin in aynu ka qayb qaadanno kulankan ayaa qayb waxa uu ka yahay kulamo madaxda wasaaradda maaliyaddu ay wadeen ee ku aadanaa dardargelinta dhaqaalaha dawladda Puntland iyo helitaanka qarashaadka ku waajibay hay'adaha madaxa bannaan iyo kuwa dawliga Shina Cabdi Axmed warbaahinta dawladda Puntland Garowe